subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axada bisha sebtembarna waa 5 sanadka 2021 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban iyo herarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggan internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka oo uu soo saaray jamaal axmed cismaan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare Roble oo sheegay inaan lagu qanci karin warkii ay hay-adda nabad sugiddu ka soo saartay dilkii Ikraan Tahliil islamarkaana u qabatay 48 saacadood in ay sharaxaad intaasi ka badan ay hay-addaasi keento. waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habbooneen ee loo maareeyey kiiska Ikraan ay taabatay dareenka iyo qulubta dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska Ikraan iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas'uuliyadda isaaran Allah subxaanahu wa ta'aala hortiisa, waxaan u caddaynayaa qoyska Ikraan, qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay in Ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad. sidoo kale waxaad maqli doontaan gobollada waqooyiga Kenya oo la sheegay inay ka jirto abaar xooggan oo saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba. waxaa kaloo maqli doontaan wiil Soomaali ah oo ku guulaystay tartan orod oo ka dhacay dalka Switzerland. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda Taliban ee la wareegtay talada dalka Afghanistan ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigeen dhowr degmo oo ka mid ah gobolka Banshiir ayaa ah gobolka kaliya ee aanay Taliban qabsanin. hay-ado samafal oo laga leeyahay dalka Talyaaniga oo gobolkaasi ka howlgala ayaa xaqiijiyey in Taliban ay qabsadeen degmada Anaba ee gobolka Banshiir. xoog ka soo horjeeda Taliban ee la dagaalamaya ayaa waxaa imika maamula Axmed Mascuud oo ah wiil u dhalay Axmed Shah Mascuud oo ahaa hogaamiye ay dishay kooxda Al-Qaacida oo ay garabsaarka la lahayd kooxda Taliban. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xuska 20aad ee weeraradii 11 Sebtembar 2001 awgood u booqan doona 3 goobood oo ka mid ah goobihii diyaaradaha lagu weeraray. madaxweyne Joe Biden ayaa booqan doona halkii ay ku yaaleen labadii sar ee dhaadheeraa ee mataanaha ahaa ee New York iyo weliba xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon loo yaqaano iyo degmada Shanksville ee gobolka Pennsylvania oo iyaduna diyaarad ku dhacday. aqalka cad ayaa sheegay in marwada koowaad ee Jill Biden ay madaxweynaha ku wehelin doonto booqashadiisa. weerarada 11 Sebtembar ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 3,000 oo qof. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa oo shacabka la hadlay ayaa sheegay in aan lagu qanci karin warbixintii hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed ay ka soo saareen dilka Ikraan Tahliil oo ka mid ahayd shaqaalaha hay-addaasi. ra-iisul wasaare Roble ayaa madaxa Niisa u qabtay 48 saacadood oo ay ku keeno warbixin intaasi ka badan. wararkii u dambeeyey ee arrimahaasi waxaa muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. maalmo jahawareer iyo hadalhaan xooggan ay ka dhalata kiiska Ikraan Tahliil oo hay-adda nabad sugidda qaranka ay xaqiijisay geerideeda kuna eedeysay Al-Shabaab, balse Al-Shabaab ay iska fogeeyeen ayaa arrintan waxaa markii ugu horreysay ka hadlay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble wuxuuna taasi u diray qoyska Ikraan Tahliil. waxaan qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsanayaa murugada, xanuunka iyo walwalka ka dhashay warbixinta hay-adda nabad sugidda qaranka ee ku saabsan geerida Ikraan Tahliil Faarax. ra-iisul wasaare Roble ayaa sheegay inuu si dhow la socdo arrinta Ikraan Tahliil waqti ku filan uu siiyey hay-adda nabad sugidda balse aan luuqan ay kareenin warbixintan nisa dhowaan ay soo saartay. tan iyo intii ay soo bilaabatay arrinta Ikraan waxaan si dhow ula socday kiiskeeda anigoo faray hoggaanka hay-adda Niisa in ay keenaan
xog dhammaystiran siiyeyna wakhti ku filan balse nasiib darro warbixinta ay soo saareen ee ku saabsan geerida ikraan ma ahan mid lagu qanci karo oo wadata caddaymo ku filan ama ka jawaabaysa su-aalaha muhiimka ah ee ku saabsan kiiska ikraan maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa qiray inaan si aan habbooneyn loo maariyay kiiska ikraan tahliil taasi oo ka dhalata cara xoogan waxaan la socdaa kana warhayaa in sida aan habbooneyn ee loo maareeyey kiiska ikraan ay taabatay dareenka iyo quluubta dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan abuurtayna caro iyo falcelin keentay in la afduubo muwaadiniin soomaaliyeed oo aan wax lug ah ku lahayn arrinkan ra-iisul wasaare rooble ayaa wacad ku maray ikraan inay heli doonto cadaalad haddaba aniga oo ka duulaya arrinkan waxaa ummadda soomaaliyeed u caddaynaya in xukuumadda federaalk soomaaliya uu waajib dastuuri ah ka saaran yahay ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadinka soomaaliyeed ee ku cad qodobada 10aad 15aad 33aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba anigoo ka jawaabaya cabashooyinka qoyska ikraan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan tixgelinaya duruufaha uu dalka ku jiro iyo mas-uuliyadda isaaran allah subxaana wa tacaala hortiisa waxaan u caddaynayaa qoyska ikraan qaraabada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed in xukuumadda federaalk soomaaliya ay ka go-an tahay in ikraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si adag uga hadlaya arrinta ikraan tahliil ayaa faray agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka in muddo ku eg 48 saacadood uu kusoo gudbiyo warbixinta ikraan tahliil waxaan farayaa agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu kusoo gudbiyo warbixin dhammaystiran ee ku saabsan kiiska ikraan tahliil faarax waxaan shacabka la socodsiinayaa in marka ay iisoo dhammaystiranto xogta aan u baahanahay aan ka qaadan doono go-aanka ku habboon lana wadaagi doono dhammaan shacabka soomaaliyeed hadduu ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo waxaan mar kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay muujiyaan deganaan mas-uuliyad iyo isku duubni lagana fogaado in lagu xadgudbo dadka aan waxba galabsan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ikraan tahliil faarax oo ka tirsaneyd hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa la waayay 26 bishii juun waxaana tan iyo markaasi jiray hadalhayn xoogan oo ka dhalatay weysmada ikraan ugu dambeyntiisa hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa dhowaan sheegtay in ikraan tahliil ay gacanta u gashay al-shabaab ayna dileen waxaase arrinkaasi iska fogeeyoo beeniyey ururka al-shabaab cabdulqaadir okey v o a muqdisho halkaad weli dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington hay-adda la socodka iyo maareynta abaaraha iyo masiibooyinka dalka kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in abaar ba-an ay ka jirto gobolada waqooyi ee dalkaas waxay hay-addu tilmaantay in goboladaasi aanay helin 3 sano ee lasoo dhaafay roob ku filan warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda maxamed faarax shire warbixintan ay soo saartay laanta la socodka iyo maareynta masiibooyinka dalkani kenya ayaa waxay ku sheegtay in guud ahaan gobolada waqooyiga ee dalkani kenya haatan xaalad adag ay ka jirto waxay sheegtay hay-addani dowliga in xaaladda haatan deegaanada qaarkood ka jiro ay tahay mid aada iyo aada fajiciso u ah qeybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyigana haatan 3 sane lasoo dhaafay roobna aysan ka hoorin xoolo fara badanna haatan ay gacanta kasii baxayaan goobihii tirada yaraa ee biyaha ku hareenna haatan ay qalaleen halka deegaano kalena xaalad adag haatan ay ka jirto warbixinta oo qeybo kala duwan leh ayaa waxay soo qaadatay in deegaanada qaar beeralaydu ay wax ku abuuranayeen haatan beerahoodu ay engegeen halka sidoo kalena dadka xoolo dhaqatada xoolihii ay kasii baxayaan daaq la-aan daraaddeed deegaanada qaarkood oo ka jirto ceelasha waaweyn ee riyeega saaran yihiin deegaanada qaar sida deegaanada webiyada ku teedsanne daaqii uu ka dhammaaday dadkuna inta badan aadayaan deegaanadaasi biyaha ceelasha ay ka jiraan halka daaqa halkaasi ku yaraadayna culays fara badan oo zaxmada uu ku keenay dadka ku dhaqan degmooyinkaasi 70% ayay ku sheegtay haatan dadka ku dhaqan geyigani inay biyaha ka raacanayeen ceelashaasi riyeega ay saaran yihiin taasina waa sababta ugu weyn ee cabsida ay ka qabto dhanka amniga in qulqulatooyin dhexdooda dadku ay ka dhici karaan warbixintan ay soo saartay laantaasi la socodka
iyo maareynta masiibooyinka qaran ee dalkani Kenya ayaa gunaanadkii waxay sheegtay in haatan cimilada oo sii adkaanayso suurtagalnimada ay dhici karto in culeys dhanka cunno la'aana deegaanada qaarkood uu soo food saaro loogana baahan yahay in dhammaan deegaanada haatan abaarahaasi ay ka jiraan dadka ku dhaqan looga baahan yahay in dowladaha deegaanadaasi ka jiro iyo hay-adaha maxalliga iska kaashadaan hab walbo dadkaasi loo gargaari lahaa. warbixinta ayaa dhankeeda kale waxay soo qaadatay beecgeynta xoolaha oo ay sheegtay in hoos u dhac fara badan uu ka jiro ayadoo tusaale ahaan ay soo qaadatay neefkii bishii Julaay ee sanadkan la iibinayay inta u dhaxayso 17,800 ilaa 17,500 oo shilin haatan la iibinayay 15,000 iyo in ka yar. warbixintani gunaanadkeedaasi ayaa waxaa lagu sheegay in haatan deegaano fara badan ay ka socdaan howlgallo biyo dhaamis loogu sameynayo degmooyin kala duwan balse dhammaantood ay yihiin kuwo la doonayo in la dardargeliyo si degmooyinka kale ay u noqdaan kuwa wax ku ool u leh adeega haatan laga fidinayo iskaashi guudna laga wada sameeyo. maxamed farax shire VOA Garissa. subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Soomaalida dalka Canada ayaa weli ka walaacsan dilalka dhalinyarada oo sii kordhaya xilli ay wadaan dadaalo kala duwan oo arrintaasi lagu joojinayo. Soomaalida qaar ayaa rumaysan in fiditaanka xanuunka COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dadaaladii lagu taageerayay dhalinyarada si looga baashiyo falalka aan wanaagsanayn. Xuseen Nuur Xaaji ayaa haddaba warbixintan ka soo diray magaalada Toronto. tan iyo bilowgii sanadkan 51 qof ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay magaalada Toronto sida ay daabaceen booliska magaalada. inta la hubo 4 ka mid ah tiradaasi waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliya. 4 waa tiro badan marka loo eego ku dhawaad 3 milyan ee degan magaaladan oo Soomaalidu ay ka yihiin tiro aad u yar. Maxamed Jaylani oo 13 January la dilay ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee lagu dilo Toronto sanadkan. laakiin waxaa xigay dilal kale oo ay ku jiraan dhalinyarada Soomaalida. Hashim Umar Xaashi ayaa xigay oo dabayaaqadii isla bishii January ee sanadkan la dilay halka Habiil Cabdullaahi Xasan la dilay bilowgii bishii Abriil ee sanadkan. Sahal Maxamed Sahal oo la dilay 28kii bishii hore ee Agoosto ayaa noqonaya Soomaaligii ugu dambeeyay ee lagu dilo magaalada Toronto. dadka lagu eedeynayo dilalka Allah u wada naxariistay dhammaan 4 dhalinyarada ah ayaa u badan Soomaali taasoo ah nasiib darro kale. bulshada Soomaalida ayaa wada dadaalo kala duwan oo wax looga qabanayo dhibaatooyinkan. Axmed Maxamed Urur waa madaxa dhalinyarada ee masaajidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto. wuxuu ka shaqeeyaa sidii dhalinyarada looga saari lahaa dhibaatooyinka ay ku jiraan ee ugu dambeyn sababi kara in la dilo ama ay wax dilaan. waxaan xilli sii horeysay weydiiyey halka ay marayaan dadaalada la xiriira joojinta dilalka dhalinyarada. alxamdulilah barnaamijku noo socdaa anaka dadaalkeena ama fokuskeena meesha xoogaan saarno waxaa weeyaan dhalinyarta badbaadinteeda sidaan uga shaqeyn lahayn kuwa ku jira sidaan uga saari lahayn kuwa yaryar sidaan jid fiican ugu jideen lahayn taas baan anaka xoogeena iyo dadaalkeena aan gelinaa. 2 sano ee u dambeeyay COVID-19 wuxuu saameyn ballaaran ku yeeshay isu imaanshaha iyo barnaamijyadii lagu caawin jiray dhalinyarada. dad badan ayaa rumaysan intaasi ay ugu wacnaan karto in dhibaatooyinku ay noqdaan kuwa weli taagan ama sii kordha. ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan. maadaama uu coronavirus 19 jiray 2 sano oo ugu dambeysay wadankan programo badan ayaa loo suubin jiray dhalinyarada oo lagu wacdin jiray qaarna shaqooyin loogu heli jiray waxna loogu qaban jiray programadii iyo wixii dhan oo la qaban jiray way xirmeen. waxaa laga yaabaa maadaama programada ka xiran yihiin dhalinyarada inay kordhisay dilalka. bulshada Soomaalida marka aad la sheekaysato inta badan waxay ka dhawaajiyaan in dadaallo ay socdaan balse dhibaatada ayaa ah mid weli taagan. haddaba Yaasiin Abikar oo muddo degan dalkan ayaan weydiiyey sababta dadaaladan aysan uga soo bixin wax natiijo ah. in arrintani horta run ahaantii ma arrin shalay bilaabatay waxay soo socotay in muddo
sidaan la socono dalkan Canada gaar ahaan gobolkan aynu ku noolnahay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay. Waxa sii socodsiinaya waxay tahay ma jirto meel inta la isugu yimid xalkii arrintan lagu joojin lahaa ee uga hadleen jaalida Soomaaliyeed ee ku nool dalkan. Maalin walba qofka dhinto reerka waa loo tagaa, waa loo tacsiyeeyaa. Hadalkiina meeshaas ku dhamaadaa maalmaha ugu horeeya kaliya ayaa aad arkaysaa dadka inay ka murugoonayaan dhibaatada jirta ee dhalinyarada ee wadanka ku dhamaanaysa. Ma jirto weli in Soomaalida ka fariisatay inay go'aan ku gaartay in waxaan ay dhamaadaan. Sidaan la socono booliiska magaaladan Toronto marar badan ayaa waxay kulmeen waalidiinta si ay u helaan wada shaqeyn ayaga iyo booliiska. Laakiin weli waxaad moodaa in arrintaasi uu gaab jiro aysan weli halkii la rabay aysan taagnayn. Haddii wada shaqeyn buuxda la helana marka waxaan filayaa in arrintan ay soo afjarmi doonto. Maxamed Sahal oo loo yaqaano Gardarro waa aabaha dhalay Allah u naxariistay Sahal oo dhawaan Toronto lagu dilay. Waxaan weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida maadaama dilalku ay u muuqdaan kuwa aan joogsi lahayn. waxaan u jeedinahay walaalow horta ilaahay inay u noqdaan dadka Soomaalida ah. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ilaahay qalbigooda barcad isku mariyo. Ummadan Soomaalida markaa fiirisid waa dad isjecel. Waxaad ka arkaysaa markii wax nagu dhacaan saan oo kale geeska gees ilaa meel kasta ka imaanayaan waa dad isjecel. caalamka ma jiro sida aan isku jecelnahay. waxaan filayaa kulligeen inaan qaraabanahay subxaanallah. waxaan rabi lahaa ilaahay intii loo noqdo in mataqaanaa ilaahay حرقيس الوجود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقان أيام نوكينا يعني ماشان الرجاي سوحوين تفرقا سنوكينا إن حرقين انتقب سنة إلهينا أن توكلنا إلهي مركز وأنا بدبادنا يا قبكلوك بدبادنا يا مجرد dowladda federaalka ee Kanada ayaa mamnuucday noocyo badan oo kamid ah hubka sidoo kalena waxay sheegtay inay malaayiin dollar gelisay sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka la xiriira dhalinyarada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto. halkan dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Cabdisalaan Cali Cabdi oo ah orodyahan dhalinyaro ah oo ku nool dalka Switzerland ayaa shalay ku guuleystay orodka 5,000 mitir ee dhalinyarada 20 jirka ka yar isaga oo ku ordayay magaca Soomaaliya. haddaba waraysi aan goor dhoweed la yeeshay waxaan ku weydiiyey tartanka ku guuleystay iyo sida uu dareenkiisu yahay. tartanka wuxuu ahaa maaragtay Swiss champion oo juniorka ma garatay oo sanadkii hal mar baa la qabtaa marka waa 5,000 oo mitir ama 5 kilomitir sa loo yaqaano. marka ma magaca Soomaaliya ku ordaysa adigu? ha maadaama aanu xaggan Swisska aan sharci qaxootinimo ka haysto magaca Soomaaliya ayaan kaga qayb galaa oo ku ordaa. laakiin bilada wadanka waan qaataa anigoo magaca Soomaaliya ku ordaya. marka muddo intee lag badan ku joogtaa wadanka? hadda aduu muddo 5 sano ayaan Switzerland joogaa. yaa kugu dhiirigeliyay orodkan sideese kugu suurta gashay inaad tartamada ugu qayb gashay? wallahi horta tartankani waxa igu dhiirigeliyay maaragtay markaan wadankan soo galay meel aan ku jirnay ayaa jirtay dad la qorayay orodoo tartan magaalada lagu qabanayay aan deganahay magaaladan deganahay lagu qabanayay ayaa dhalinyar meesha aan wada deganayn oo wadankana iyagoo sidoo kale qaxooti ku soo galay ayaa tartan maaragtay la qoray markaa anu maadaama markaa da'daydu ay yarayd waa layga reebay oo layma ogolayn saas darteed dadka dhalinyarta orodka ka qayb galay Soomaali kumay jirin waa dhalinyaro kale wadamada Eritrea, Afghanistan adu wadamada ka soo jeeday ahaayeen nin walba wadankiisa magaca wadankiisa kaga qayb galay markaasaan dhayno aniguna inaan ka qayb galaan rabaa magaca Soomaaliya ku ordayo markaas sidii la igu ogolaaday tartankii 10 kilomitir baa tartankii aan ku soo guuleystay kadib sidii ayaa koox fiican la igu geeyo ninkii maaragtay tartanka naga qayb galiyay ayaa kooxdan geeyo macallinkeen hadda maaragtay itobare ii geeyo marka saas ayaan maaragtay kooxdan iyo maaragtay macallinkana ku helay. marka markii hore wadankii joogtay maad ordi jirtay mise inta Switzerland mid baa bilowday orod? ma ordi jirin markaan wadankii joogay kubadda ma ciyaari jiray. dhalinyarteena Soomaalida waxa u badan yihiin dad kubadda ciyaara orodada markii wadanka la joogayna waxaban naqaanaaba sportiga orodada si adaabad orodada waxa waaba lagu caayiba ma garatay hadaa markaan orodka bilaabay dhalinyar badan oo dhaayay maxaad kubadda iskaga ciyaari weeyday ayaa jira markaasaan dhahaa aniguna nin Soomaaliya kubadda Premier League ama champion ka ciyaaro lama arko laakiin orodada Moon Farax iyo Cabdi Biro world champion iyo Olympic ka soo qaaday ayaa jooga ma garatay marka waxaan u maleynaa inaga aan Soomaalina xagga orodkan haybad ku leedahay. sidee kugu suurta gashay marka adoon hore ordi jirin inaad hal mar guuleysatid? tababar badan ma sameeynin laakiin waxaan iska ha markaan kubadda xataa ciyaaraya dadka kale waan ka orod badnaa oo orodkayga waxiba aanan ogeyn bay haydo igu jirtay
laakiin aanu markii hore yacni aanan is ogeyn inaan orodyaha noqon karo maadaama aan kubadda aada u xiisayn jiro xataa markaan Swiiska soo galay aan kooxda ciyaari jiray markaan kooxda isla ciyaarno aan kubadda aan ciyaarno dadka waan ka orod badnaa ma daali jirin yacni markaa waxaan is ogaaday inaan orodka ku fiicanahay. waa tahay ugu dambeyntii waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo adigoo kale ah oo dhowaan yimid laakiin aan sharci haysan islamarkaana aan la qabsan wadankii oo duruufo badan ay la soo dirsaan kuwaasoo kale maxaad kula talin lahayd? horta Switzerland hadday joogaan anigaaba garab qaban kara oo hadda waxaan dhisnay koox maaragtay dadka qaxootiga ah caawinaysa qofka ama sharci haysta ama yuuna sharci haysanin maaragtay trainingkii lacagtii laga dhiibayo kabihii ku ordi lahaa dharkii ku ordi lahaa orodada xataa bilaash lagaga qayb gelinayo lacagtii ku baxaysay shirkad ayaa ka bixinaysa anigu kooxdaas ayaan hadda ka tirsanahay oo yacni macalinkayga ayaa ka tababara aniguna waxaan ahay gacan yarihiisa ayaan ahay ama assistant coach aan ahay macalinka marka haddii Swiisku qof joogo dhalinyaro Soomaaliya in orodka horumar ka gaadho raba anigu ila soo xidhiidhi karaa laakiin wadamada kalena kolley waxaan kula talin lahaa in ay ugu horeyn ay raadsadaan kooxo kolley wadamada Yurubta badanaa kooxo orodada way jiraan kooxo badan oo orodada ah jira marka magaalada uu degan yahay inuu koox orodka ah ka helo sharciga laguguma xidhayo orodka maaragtay intaad liifooyinka hoose ordaysid maaragtay sharci laguguma xidhayo adoo sharci haysan waad ordi kartaa ma garatay dhaqaalahana kolley de kabaha iyo waxaasna qof ka saaciida ma waayo moogta. kaasi waxa uu ahaa cabdisalaan cali cabdi oo ah orodyaha dhalinyara oo ku nool dalka Switzerland kuna guuleystay tartan orod oo ka dhacay dalkaasi waxaana uu igu warramay khadka telefoonka isagoo ku sugan dalkaasi Switzerland. subax wanaagsan markale dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. hay-adaha gargaarka ee ka howlgeli jiray ayaa rajeynaya inay dib ugu laabtaan waddanka Afghanistan kolka ay dowladaha Turkiga iyo Qatar ay hagaajiyaan garoonka diyaaradaha ee Hamid Karzai oo aan hadda shaqo ka soconin. warbixintan waxaa inoo hayaa Ibraahim Cumar Baf. ballanqaadkan dhanka amni ee ururka Daalibaan ayuu yabooheen hay-adaha gargaarka ee hadda ku sugan dalka Kazakhstan ayaa weli shaki weyn ay ka qabaan sida uu VOA-da u sheegay Dr. Xuseen Yunis oo ka tirsan shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay. hay-adaha gargaarku waa ay ka go'an tahay inay dib ugu noqdaan waddanka Afghanistan weliba sida ugu dhaqsiyaha badan waayo maamulka Taalibaan tan iyo intii ay dalka la wareegeen waxay ku celcelinayeen in hay-adaha gargaarku ay dalka sii joogi karaan inay ka shaqayn karaan islamarkaana inay haystaan damaanad qaad amni hase ahaatee waxaa muhiima in la helo wax loo yaqaano airbridge oo ay hay-aduhu ay helaan meel diyaaradadu ay ku degi karaan si badqaba ayna uga soo duuli karaan. garoonka diyaaradaha Hamid Karzai ayaa weli aan si buuxda loo furin tan iyo intii Maraykanka iyo xulufadiisu ay ka baxeen. sidee marka haddaba howlihii gargaarka loo gaarsiin karaa Kaabul? sidaynu la socno labadii toddobaad u dambeeyey madaarka Hamid Karzai mashquul buu ahaa waxyaabo fara badan oo yacni sahlaya inay diyaaradu ka soo degaan unba ay ka haadaanna qalabkii iyo wixii kale la xidhiir waa la burburiyey marka in Taalibaan iyagu ay dib howlahaasi oo dhan ay isku dubaridaan oo isla markaana damaanad qaadka ay sameeyeen uu noqdo mid la isku haleyn karo ayay ku xidhan tahay ku noqoshada hay-adaha gargaarka ee waddanka Afghanistan laakiin waxaan ku xaqiijin karaa hay-adaha gargaarku haddii ay suurtagal tahay inay beritool ay ku noqdaan Kaabul inay doonayaan inay ku noqdaan. barnaamijyadii gargaarka iyo kuwii caafimaadka aad ka wadeen Kaabul halkee ayay ku dambeeyaan? walaaca ugu weyne waxa uu ka jiraa mashaariic fara badan oo ay ka mid tahay barnaamijka tallaalka caruurta iyo hooyooyinka barnaamijka caafimaadka asaasiga hooyada iyo dhallaanka barnaamijka tallaalka xanuunkan safmarka corona iyo adeegyada kale ee gargaarka bini'aadnimada ee lagu taageera dadka tabaalaysan ayaa waxay ku xidhan yihiin hay-adaha gargaarka deeqbixiyaasha iyo dowladaha lacagaha iyo dhaqaalaha ku taageera oo dowladii dhacday ee Afghanistan lacagta ku taageeri jiray ma doonayaan inay mustaqbalka dhow ay wax lacaga ama wax dhaqaalaha ay mariyaan dowladda Taalibaan waxa iyagu doonayaan inay la shaqeeyaan hay-adaha gargaarka sidaas darteed hay-adaha gargaarku waxa ay doonayaan inay iyagu ay sida ugu dhaqsaha badan lahay waddanka u tagaan isla markaana meesha aanay uga dhicin masiibo bini'aadnimo. mar haddii daalibaaniyiintu ay damaanad qaan idin siiyeen dowladaha Qatar iyo Turkiguna ay sheegeen inay hagaajin doonaan dhanka farsamada madaarka maxaa idin celinaya oo aad u tagi laadiin Afghanistan? damaanad qaadkaasi Taalibaanku waa uu jiraa waxa la sugaya oo kaliya waxa weeyaan madaarka inuu shaqeeyo weliba sida ugu dhaqsaha badan leh waxaanu ka rajo qabnaa
taageerada dowladaha qatar iyo turkigu ay u ballan qaadeen dadka reer afghanistan inay u furi doonaan airbortka, islamarkaana dhanka logisticada iyo farsamada inay ka caawin doonaan. waxaan rajeynaysaa ugu dhaqsaha badan taas inay u dhacdo. dalka afghanistan ayaa durbaba la sheegayaa inay ka jirto xaalad bani aadamnimo, iyadoo kumanaan afghanistaaniyiin ah oo laga daadgurayey dalkooda hadda ay qaxooti ku yihiin meel ka baxsan waddanka afghanistan. ibraahim cumar baafe, wararka v o a, magaalada melbourne, dalka australia. aad ayuu mahadsan ibraahim cumar baafe warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdinaaser macalin.